faryahanadii Soomaaliyeed Ramla Cali waxaa la soo ogaaday nin argagixisada ka tirsanay fariimo uu diray oo ku soo hadal qaaday Ramla Cali markii dalka iimaanaysay qorshe ayuu kala hay mudane gudoomiye shaqooyinka argagixisada aysan u dirin oo iskiis u qabsan maxaa kamid ah mataqaanaa gabar faryahanada oo Soomaaliyeed oo Ramla la yiraahdo oo magaalada Muqdisho soo degtay dalkeeda u soo xiistay oo wuxuu gudbiyay reportkeeda gabar Ramla la yiraahdo Mareykanka ka timid camal maxaa ka galay macnaha amni darro inuu dalkan ka dhigo bis le waay inuu dadkan Soomaaliyeed oo farxadda ku jiro iska nashaada uu laayo le waa mudane gudoomiye ninkani waa halis mudane gudoomiye Cabdisalaam ay leeyihiin maxkamadda qaybka sida ayaa ninkan eedana kale ku haystay ay wali waxay aragtay fariimihiisa inay kamid ahaayeen Ramla Cali gabadha Soomaaliyeed oo dalka u timid in dalka soo boqoto ugu dambeysay 1992 markii ay ka tagtay dalka soo laabatay iyadoo faryahanad ah caalami ah sidoo kale adduunka laga yaqaano markay soo laabatay dalka ay soo boqotay sidoo kalena dalka waxay ku jilaysaa filin yaraanteeda sidoo kale qisadeeda ku saabsan waxay la kulantay madaxweynaha sidoo kalena gabadhan Soomaaliyeed caqabad kale ayaa qabsatay wasiirro ayaa waxay u ballan qaaday inay helayso gabadhan baasaboorka diblomaasiga ah markay ay tagtay waxay isdhahaysay tartanka qayb gal Mareykanka laakiin soo loo diiday maadaama Soomaaliya ay boqotay marka ma la ogolo inay tagaan dadka Soomaaliya boqdo gabadhan marka tartankii markay saas ay ugu baaqatay gabadhan Soomaaliyeed marka ee hadde ka badbaaday ninkan falka uu maleegay sidoo kale shabakadu waxay isku xiran sidoo kalena waxaa ku jirta haweeney taasoo guryaha ka karinaysay si sharci darro ah dadkan aysan sheegin ay ka kareysay maxaa kale yihiin comment ku soo qora